waxay tiri hilib meeshii ma yaali haabay tiri waxaana hooyo usoo qaad markay usoo qaaday goorma markaasi ya waa adigu labadii saac bay adigu ku dhadhowdahay mana gaadhin xalay miya maya waxa weeye shalay weeye shalay haye shalay subaxii weeye dhiigisada waa ka subaxa ah haye gabadhii baan oogu diray waxay tiri gabadhii lacag may qaadine markaad ninka u tagtay soo waco lacagta markaasaan u shubaya haye gabadhii baa isoo wacday gabadhi waxay tiri gabadhii ma haye gabadhi miyaada hilibkii iigu diray haye waxaan idhi waan kuugu diray gabadhii hilibkii miyaada gabadhii arag aniguna waxaaban isleeyahay gabadhii bayba u tagtayba haye gabadhii mar kale isoo wacday waxaan idhi ma haysid miya ma hayay tiri mar saddexaadkii markay sa ay la soo hadashay oo adigu 2 saac ay isleeyahay wax yar baa dheer baan intaan istaagay nin meesha hilibka lagu gado way noo dhowdahay sid waxaan gelnahay jid saas u diritaysanoo wax laga arki karo jidkii baan saa u fiiriyey ninkii baaskiilkiisii iyo waxaan arkay baaskiilkiisii iyo gaariga baaskiilkiisa isagoo saaran oo iskale saa xagga suuqa isu jihayaan arkay haye waa ninkee waa mid hilib gaba oo kii gabadha hilibka aan ooga diray haye ninkii baan wacay waxaana war gabadhi ma kuu timid suu yidhi markii hore ay ii timid mooye mar dambe ma arag anigu gabadhi haye gabadhii ninkaba intaysan gaadhin baa beladu qaada waa gartay marka shalay oo dhan baan wareegeynay meel walbaan maray saaka markuu waagu saa u bariyey baa oo la galay maaragtay salaadii oo laga soo baxay baa dadkii u horeeyey xagga xaafadda usoo socdaa waxay dhaheen gabadhii caashaahi maydkeeda halkan u yeelaaye oo iyo halkeen haye marka saasay arrinta ku dhacday meel aniga adinka dhexe maaragtay mar ay tahay ha adinka u dambeeyey mar ay tahay xaafadan anagu aan deganahay gurigaasaa loo ballaqay gurigii gaaridaa ka soo baxay adigu aagaan is idhi niyad ahaan wuu ku istaagay anu waxaa layma seexane niyad ahaan meeshuu ku istaagay baan is idhi haddana xus buu yidhi aniga niyadayda mana seexane waxaan is idhi gurigan gaariga xilligaa ka soo baxay salaad lama geline maxay tahay haye intaasna way jirtaa oo anigu tuhunkaasna waan gabadhaad intee sano jir ahayd hooyo gabadhay 13 jir aan weliba u dhamaanay bilo oga dhameyn yihiin ba meesha iyo xaafadda ay wax ka dhaceenna waa halkee gaalkacyo ka xagee weye gaalkacyo waxa weeye xerasiinay ahee la burburiyey baan xagga bariga ka nahay oo xagga jidka aeroboortka ka saaran oo xagga bariga gabadha maydkeeda haddaad aragteen sidee wax u qabtay oo xagee wax laga gaarsiiyey gabadha anigu horta marka saa loo soo dhigay maana fiirinin markii la geeyey ma fiirinin laakiin gabadha waxaa layihi madaxaa laga dilay ilkihii waa laga daadiyey meel walba oo qaarka sare ah eber bay ka ahayd mida kale way isu gooyeen oo gabadha dad badan baa isu dabamaray niman badan baa isu dabamarayo kufsina way ku sameeyeen waa gartay marka waxaan ku weydiinayaa hadda ka hor ma jirta cid iyo aad isleedahay waa colaad kala dhexaysa ma jirta maya anigu weligay xaafadan cid kalama diririn ayadu sidoo kale ahayd waa qadar rabi ma jirto wax aana oo dabagal oo xagga dagaalkii oo derisnimada ma jirto waayahay hooyo dawladda iyo haddaad la xiriirteen oo gabadhii maydkeedii hadda la helay marka maxaa dawladda war idin siisay wax baaritaana ma socdaan ha wiil baa wuxuu igu yidhi baaritaan baa socday wiil baa kula soo hadla iyo wiilkaa la hadal buu igu yidhi baaritaan waan wadnaayo saasuu igu yidhi wiilka laakiin anigu waxa warbixina kaama siin karo carruur intee kuu joogtay ya carruur adi intee kuu joogtay carruur waxaa 7 hadda joogta waayahay hadda gabadhii ma la aasay mise weli baaritaan bay ku jirtaa
gabadhii lama aasin baa la frinjiyeer baa la gelinayaa in la geliyey in la gelinayo ma aqaana frinjiyeer baa la gelinayaa baa layidhi meesha subaxdii laga helay ma gurigaaga hortiisa mise waa xaafad kale may waa guriga waxaa weeye jid baana dhex mara annagii xaafad kale guriga nagu soo jeedo oon waxba noo jirin guriga labaad ee ku dhegan iyo gurigaasna saa noogu soo jeeda dhexdooda oo kan kale xaggiisa xigaa laga helay oo saa loo soo dhigay isagoo waxaa la yidhi bacdaa xataa ku jirta anigu marnaba ma fiirininoo bacdaa hoosta kaga jirtay hadda intay fuurtay oo meel walba laga dilayba ma fiirin anigu laakiin halkaasaa laga helay xaafadana saa dadkii ka yimid dugsiga iyo salaadaba iyo ciyaalkii dugsiga u socday baa caashaa maydaha taalla saadaan oogu dirnay de dadkii waa la qaaday ma fiirin anigu laakiin waxbarashada heerkee ka gaartay waxbarashada galaaska waxay maraysay 6 bay ahayd iskoolka qur-aankana adigu 18 juz meelaha 19 bay ya huud bay maraysay huud waa yahay hooyo oo allah samir iyo iimaan ha kaa siiyo gabadhan amiin runtii arrin fool xun oo ugub ah ayaa ka dhacday gaalkacyo arrintaas oo ah arrin tacaddi loo geystay gabar 12 jira oo iskuul dhigata oo sida hadda kulley wararka nagu soo gaarahayaan runtii tacadiga loo geysto uu ahaa tacadi marka horeeto kufsi ah kadibna mataqaana la dilay arrintaasi hay-adihii baarista ayaa hawshoodii shaqadooda inay galaan ay fuliyaan oo ay mataqaanaa baaris sameeyaan ayaan kala hadalnay xafiiska difaaca xuquuq aadanaha puntland wuxuu qaaday runtii howlgal buu isaga laftigiisa qaaday dhankeena baaristii iyo mataqaanaa korjoogtaynta kiiskaas ayaan ku jirnaa. waa garta marka arrintan ma markii ugu horeysay puntland ay ka dhacdo oo dhacdadan oo kala diiwaan gelisaan waa markii ugu horeysay miya runtii arrintaani waa arrin markii ugu horeysay iyada laftigeeda dhacday way dhici jireen kufsiga laakiin kufsi dil la socda waa markii ugu horeysay haddana tiimam ka socda qaybta baarista forensic labka ee puntland ayaa iyagana la meesha waxay kusii jeedaan goobtii falku uu ka dhacay maxaa lagu xaqiijinayaa kufsi inuu dhacay isbitaalkay gabadhu taallaa isbitaalka laftigiisa ayaa laga xaqiijiyey oo mataqaanaa baaristii hore oo hordhaca ahayd ayaa lagu xaqiijiyey haddana tiam forensic labka ka socda ayaa tegaya oo already waxay kusii socdaan gaalkacyo iyaguna maaragtay baaristooda ayay samaysanayaan iyo halkaas waxaa ka suurtageli doonta in maaragtay dadka tacadiga geystay in maaragtay jariimadaas weyn geystay in halkaas maaragtay la helo waxay yihiin iyo mataqaanaa xogtooda waa garta marka marar kala duwan baa puntland waxaa ka dhacay arrimahan kufsiga marka imisay gaarayaan walaale kiisaska noocaas oo kale ah way dhacaan dalkoo dhan oo dalkoo idil bay ka dhacaan alxamdulilah hadda waxa runtii horumarka ah oo la sameeyey waxay tahay in kiisaskaas oo kale marka ay dhacaan isla markiiba bulshadu ay soo gudbiso social media waxyaabaha uu mataqaanaa faa'iidada ku leeyahay ayay hadda ka mid tahay isla markii kiiska dhacay isla markiina waxa weeye warbixintiisa waa la soo gudbiyey haddana waxa weeye hadduu ilaah yiraahdo kiisaska waa ururina annaga xafiiska xuquuq aadanaha puntland sanadkii lasoo dhaafay oo kale 2018 kiisaska xafiiska uu gaar ahaan u galay waxay ahaayeen 51 kiis oo kufsi ah hay-ado badan oo mataqaana dalka ka jira sida xeer ilaalinta iyo dambi baarista iyo kulli waa iska kaashana wayna ka shaqeeyaan waan garta marka markii kufsigaas uu dhaco oo kale ma jirtaa inaad gacan qabad aad ku samaysaan qolyaha tacadigaas loo geystay gaar ahaan qoysaska oo dhici karta kuwooda jilicsan inay ku jiraan oo aan iska bixin karin xataa maxkamadaha iyo markii hawshooda ay gelayso waan samaynaa kaalmo iyo mataqaanaa u gargaar baan u samaynaa dadka kufsiga loo geysto kuwii laysku dayay iskudayga lagu sameeyena waxaweeye kaalmo caafimaad iyo kuwa mataqaanaa sharci iyo waxaa loo sameeyaa kuwa mataqaanaa maskaxdooda caafimaadka psychosocial la yiraahdo qofkii maaragtay uu ku dhacayna waxaweeye dee maaragtay waaba ku dhacay oo dulmigii iyo dhibkii loo geystay sidii dadkii dembiga geysta sharciga loola tiigsan lahaa haddana kiiskan cusub dee waa mid lamid oo sharciga in lala tiigsado ciddii falkan ka dambeysay laakiin familkii haddee waxa weeye dhibkan uu ku dhacay waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay unbaa mataqaanaa ilaahay sabr iyo salwaan ha siiyo arrintan kule waxaa ja uguba oo dhacday laakiin markii dilal ay dhacaan oo deegaanada puntland oo kale ay ka dhacaan waxaa jira in dhaqanka oo kale arrimahan ay soo dhex galaan marka xafiiska xaquuqul insaanka arrintaas oo kale see u arkaa haddii dhaqanka xaggiisa loo weeciyo
xeerka kufsiga Puntland ee la ansixiyay 2016 wuxuu mamnuucayaa kiisaska noocaas oo kale kiisaska kufsiga oo kaleeto in aan xal mataqaana dhaqan lagu gali karin sinaba aan loogu gali karin waa sharciga xeerkaas oo xeer baarlamaan ah oo sharci ah sharciyada kamid ah Puntland ayaa qoraya arinta noocan oo kalena mataqaana oo hadda runtii aad ku u foolxuna dhaqan ma soo gali karaan waa arin dawladda u taala waa arin u taala